commissionka booliska madris kii hore booliska caadiga baa lagu waxayna madris kale loo soo daabacaya goorma madriska laga dhigaya arintaas baa iyadu marka meesha taala ciidanka gaarka goorta madriska laga dhigay dawladdu goorma shaacin doonta dhismihii koow way bilowday saraakiisha laakiin ciidanka in xaflad loo qabto madriskoodii hore laga dhigo oo loo sheegay inay tahay in boolis caadi laga bedelay marka booliska caadiga ma dharkan in bay sii wadan doonaan ma dhar kale oo boolis baa loo sameyn doonaa oo loo soo saari doonaa عيد مبارك كل عام وأنتم بخير أيام ودلنا هيدا وضيال ميركز تود عالم كجوكتان كنا سودوا هذا برنامج كحجورا وعنو عاود يكون قاعد عندك دونه حكتي عيد مدى نيو بوليس كيو كلا درستي أما هو كدرستي أما درس بدل كي ماشى وكودن بيه تاسيو مدح دي وسر سرسية عيدا كي نيو بوليس كاي ديجان كلها لو قد ديجاي ديجان ككوميشن كجود وطلية قفايد ديال الشيء إن لقد ديجاي طلية جود أما كوميشن كجود بوليس كديجان كالصومالي ده halka ku-xigeenkiisii ciidanka gaarka ah ee liu booliska general Sakariye isna aan la soo sheegin meesha loo magacaabay komishinkii deegaanka oo isagana aan la sheegin meesha loo magacaabay rag badan ayaa warqadaha laga dhaxwaayay xilal fara badanna waa loo magacaabay saraakiishii ugu sirsareysay ee ciidankii gaarka ah ee liu booliska hadalhaynta magaalada dhex socota waxay tahay maanta ama berri ayaa laga bedelayaa diriska iyo magaca oo loo bixiyay booliska rasmiga ah ee deegaanka waxaa warkaasi soo dhagaynayay indhaynayay dhegtana ku hayay inoo qaada dhigaya wariye Muxiidiin Xarag oo dhinacayga fadhiya Muxiidiin soo dhaw wadawha Cabdiraxmaan waxaan leeyahay ciid mubaarak dhamaan taageerayaasheena ku xidhan barnaamijka xog waran iyo guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair wa minni wa minka saalih al-a'maal waxay noo joogtay in ciidamada deegaanka la yiri isbedel baa lagu sameeyaa reformkiina si dhab ah in dadku u ogeyn wata ugu dambeyn maanta ciidanka gaarka ah taliyahoodii waxaa laga dhigay komishinka deegaanka oo ah taliyaha guud ee booliska deegaanka waa booliska maxaan ku dhahay caadiga madaniga ciidamadii qofkii ma laga dhigay xariyi ma laga bedelay tiriiskii ma laga bedelay magacii ma laga bedelay waxtaas isu yar wada san mise taliyayaasha baa la waxeeyay haddii taliyayaashii ciidanka gaarka ee liu booliska laga dhigay taliyayaashii hore booliska ilaa deegaanka komishin buu sii lahaay miyay boos riixeen oo xaqii kuwaasi ku dambeeyeen sidee wax yahay Cabdiraxmaanow waan ku salaamayaa daawadayaasheena waan salaamayaa mar labaadna ciid mubaarak ayaan leenahay dabcan deegaanka Soomaalida warar kala duwan ayaa ka soo baxay tan intii la dhaacay ciidamada deegaanada waa la kala diraya wararkaasi siyaabo kala duwan baa looga falcelinaa laakiin qoomiyadda Soomaalida oo dabcan ay tahay mowduucan daaran yahay tahay ka hadlayno waxay noqotay qoomiyadii koobaad ee iyadu si duuduub u qaadatay markii ka soo baxday xukuumadda sare ee federaalka iyo Abiy Ahmed ciidamadii durba waxaa laga dhaqan galiyay shirar kala duwan oo lala yeesho in hore u baahinay iyo kulamo isdaba joog ah hay'adaha amniga iyo madaxda deegaanka ee madaxtooyada ugu horeyso iyo saraakiisha ciidanka oo u socday ugu dambeyntii waxaad moodaa in lagu qanciyay nin loo bedelo booliska caadiga laakiin dadkii iyo qoomiyadihii la midka ahaa iyaga sida Soomaalida oo kale isku xeerkooda qabanay wali ma insan iyagu ma insan talaabadan ma inaan isla qaadanin oo maxaarada waxaan la soconay way diiday iyadoo rashbada iyo dagaal iyo waxyaabo ay gashay banaanbaxyo ka soo horjeeda canfarta lafteedu aad baan loogu sii mashquulinayay lafteedu way diideen qoomiyadii koobaad ay qaadatay Soomaalida ay noqotay dabcan hore ay intaa u baahanay ciidamada niyuga liu booliska loo yaqaanay xooga gaarka dabcan isku shaandhayntii koobaad ama tallaabadii koobaad lagu dhaqan gelinayay arintan ah in ciidamada dib habeyn lagu sameeyo ama magacii laga bedelayo boolis caadi laga dhigay maanta uu hirgashay taliyahoodii guud ee ciidanka xooga gaarka ah عبد علي السياد oo kafaadha ay dadku inta badan u yaqaanaan waxa loo bedelay komishinka guud ee deegaanka Soomaalida komishinkaasi waxa haystay nin magaciisa ma haya laakiin wuxuu ku yar magac baxay ama naanees raacday baa jirta dhacdo ka dhacday deegaanka Soomaalida gabadhii xildhibaanada ahayd iyo dad kale oo waxyeello lagu gaarsiiyay gabadhaasna Allah u naxariisto Juweeriye Sucus iyadii familkeeda bay dhibaato badan ka soo gaadhay idina ay ku dhimatay
maalintaas baa dhacdo weyn oo naxdin lahayd bulshada dhaxdin ku lahayd shaqaaqa yar baa dhacday marka magacii baa raacay marka taliya shaqaaqa yar waa laga bedelay meel loo dhiibayna ma garanayno laakiin booskiisi komishiga guud baa taliya shaqaaqa waxa lagu bedelay ninka la yiraahdo Guy Fayde oo ah taliyaha guud ee ciidanka xoogga gaarka booskiisa kaas lagu bedelay waana booska kaliya ee deegaanku markii hore maadaama laba ciidan joogay laba mudnaan bay kala laakiin imika mudnaanta koobaad mar haddii boolis noqotay muhiimadda koobaad ama ninka ciidanka ugu sareeya waxa weey laamaha ammaanka marka laga yimaado gobolka nabadgelyada ugu sareeya waxaad moodaa in ninkan lagu aaminay gafaadho ahaa taliyihii guud ee ciidanka xoogga gaarka taasna waxay cadeynaysaa amaba loo fahmi karaa in ciidanka gaarka dhaqdhaqaaq iyo falcelin ama dagaal ama xurguf in ay keenaan ama khilaaf in ay keenaan in laga hortagayo la leeyahay mudnaanta booliska caadiga idinka la ka siinaya taliyihiinina waa kan taliyihiinina raaca marka booliska caadiga ah hore in dhulka la galayo waqtahay oo la oranayo booliska waa la idinka qaaday dabcan ma hadii imika adiga intii meel laga keeno nin kale boos laga qaado waxa isku qancinaysa in kala wadi boos laga sii qaaday maxaad waxaynaysa marka hadii ciidanka la dhehela komishinka booliska hore ku sii daba faylaysa falcelinteedu iska garanaysa laakiin waxa la dhaadin kiiba la idin dhiibayaa qoladii kale booliska caadiga ah iyagu ba lagu faylanaya nin dhalinyaro isaguna waxa jiray komishinka xigeenka booliska ah Cabdiraxmaan Dheere la dhaho isagana taliyaha tababarada booliska tababarada ayaa isagana kuliyada tababarada booliska ayaa loo dhiibay kuliyada tababarada ciidamada mise booliska la mise ciidanka gaarka ah ayaa hore lahaa waxaan jecelahay inuu ta booliska ay tahay tii gaarka ma jirtaba tababarka booliska baa jirtay taas baa loo dhiibay markii horena kan shaqaaqa yar la dhahayay baa may haysan jiray oo intaan loo dhiibin intaan komishiga guud laga dhigin taliya shaqaaqa ayaa haystay meesha tababarada marka imikana ku xigeenkiisii oo ahaa Cabdiraxmaan Dheere baa loo dhiibay marka imika waxaad moodaa isku shaandhaynta inay durba bilaabatay ku xigeenkii ciidanka gaarka wali wax ku xigeenkiina laga qaaday komishiga ku xigeenkiisina laga qaaday ku-xigeenka ciidanka gaarka Master Sakriye xagga isaga waxaad moodaa Sakriye wali meel loo magacaabay ma ogin laakiin kulley waxaan maleynayaa dawladdu inaan ninkii aan wax kale loogu marmarsoonin inaan xillaan la digino isku shaandhaynta un buu kulley meel ka soo gali doonaa ama xilkiisi ku lamid ah qaato ama ku ka hooseeya ha qaatay laakiin muhiimaddu waxa weeye ciidankii durba tallaabadii dawladdu ay dabcan dawladda deegaanku hay'adii habeen lagu sameeyo waa ay bilowday oo durba waata isku shaandhaysay saraakiishii hoosaadka ahaa iyo booliska goor sida la isugu dhaxqasi doono kulli waxa laga yaabaa in la isku dhaxqaso oo booliska kalena aan la gobolada commission bay leeyihiin marka halkaas way iska khilaafayaan dhismaha ciidanka gaarka ahaa iyo dhismaha boolisku regimentiye lahaayeen halkii regiment laga yaabaa inuu dhowr gobol isku haysto ama halkii urur laga yaabaa inuu aaga bari oo dhan haysto guda iyo qorxay hal talis ay lahaayeen marka taas waxa lagu dabaqay middan Cabdiraxmaan deegaankeena markaan joogno ciidanku mudnaan buu yar kale leeyahay innaga booliska caadiga niyuuna way iskaranayeen niyu booliskuna way iskaranayeen mudnaanta niyu booliska mar walba laga siin jiray maadaama howlgallada ay ugu fulinayaan iyo tababaradooda ay ka duwanaayeen imikada lafteeda ciidanka maadaama nimankan iyaga waxba meeshoodii lagama bedelay booliska caadiga shaqadooda iyo mushaarkooda way haystaan isbedelku waxa uu ku imanayo waa ciidanka gaarka marka mudnaanta waxaad moodaa in dawladdu ay siinayso ciidanka gaarka in mudnaanta la siinayo mudnaanta in la siiyana waxay dawladda macnaha ka caawinaysaa in khilaafuna meesha iman oo taliye iskala goosto horintii uu xukumay iyo khilaaf macnaha soo kala dhaxgala dawladda iyo ciidanka aysan jirin marka inta lagu qancayo ee arrintan lagu qancayo waa in ciidankan gaarka ah ee la raray reer marka la raro de kan la raray baa la dejiyaa laakiin reer degan waa sii degana booliska caadiga shaqooyinkooda iyagu haystaan laakiin booliska geediga ah ee dib habeynta lagu sameeyay waa kan gaarka marka hogaankooda ugu sareeyay waynu aragnaa xilka ugu sareeyay komishinka loo dhiibay saraakiisha kalena ayagana in la isku dhaxqasi doono oo badan tahay booliska caadiga iyo booliska new booliska iyagana la isku dhaxqasi doono iyaga laftooda ay si wada jira la isugu mili doono inta isla qabsanayaan maadaama ciidankan markii hore laba kala talis lahaayeen iyo laba kala saanadood marka imika arrin kala jirta oo dawladdu aynu wali iyadna shaacin inta dadkuna u dhigtaagayaan ciidanku Idris buu lahaa dabcan
waxyaalaha kale marka laga yimaado dabcan dawladda sheegaysa ilaa isbedel ku iman maayo mushaarkooda iyo waxaas noloshooda laga dareemi doona goor inagu ma ogi imika mushaarkooda askariga waxa iska bedelaan noloshooda yaa laga dareemi doona goor maadaama dadkeena yihiin oo qof walba uu family ka dhashay familkiisa inuu soo joogo laakiin dareyskii booliska caadiga ahaa in ciidan badan bay aan 50 kun hadayna ka badnayn aanan ka yarayn ciidanka tiradiisu intaa tahay commissionka booliska madreyskii hore ee booliska caadiga baa lagu waxaynaya madreys kale loo soo daabacaya goorma madreyska laga dhigaya arrintaas baa iyadu marka meesha taala ciidanka gaarka goorta madreyska laga dhigaya dawladdu goorma shaacin doontaa dhismihii koow way bilowday saraakiisha laakiin ciidanka in xaflad loo qabto madreyskooda hore laga dhigo oo loo sheegay inay tahay in boolis caadi laga bedelay marka booliska caadiga ma dharkan in bay sii wadan doonaan ma dhar kale oo boolis baa loo sameyn doonaa oo loo soo saari doonaa ayadana taasi waa su'aal xagga dawladda weli aan ka soo bixin jawaabteedu laakiin la filayo imika maadaama maanta ay dulba ay magacaabista bilaabeen in sida ugu dhaqsaha badan inaan la arkin wax dareyska sii xiran oo liyu booliska dareyskoodii iyo qaabkii u shaqeynayeen toona marka ideology ahaan waa la bedeli doonaa dareys ahaan waa la bedeli doonaa marka dhismahaan waa la bedeli doonaa okay aad iyo aad buu mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa wariye Muxidiin Xarib oo inooga xog warramayo xogii ugu dambeeyay ee ku xirnaa ciidamada reformka lagu sameeyay ee booliska gaarka deegaanka ama liyu booliska taasi oo la sheegay in ay meel fiican marayso waa sida dawladdu ka soo dhawaashay warar kale oo suuqa ku jira ayaa sheegaya in ciidamo ay ka soo koosteen aaga Shaniilo oo ciidamada ugu faraha badan fadhiisinkoodu ahaa kuwa reformka lagu sameeyay isla mar ahaantaana ay dhaxday dhambal ay ku hor istaageen ciidamada military kuwaas warkooda meesha uu ku dambeeyay weli ma aanan isagoo faahfaahsan helin iyo isagoo sugan midna wararka ka soo kordha iyo isbedelka ama dib u habeynta lagu sameeyay ciidamadii gaarka ah oo taliskoodii guud loo magacaabay komishinka deegaanka Soomaalida komishinka xigeenkii iyo komishinkii horena loo kala magacaabay komishinka xigeenkii horena loo magacaabay maareeyaha ama kulliyadda tababarka ee ciidamada booliska deegaanka taniyaduna xogaha ka soo kordha barnaamij kale iskaga soo noqon doono waxaan idinkaga tagaynaa anagoo ah Cabdiraxmaan iyo Muxidiin sidaas iyo nabadgelyo